sheekadu waxay ahayd annagoo joogna magaalada la yiraahdo Calgary oo magaalo ku taala Canada oo sheekh waa ku taala meel la yiraahdo Alberta ku taala wani imaam masaajid ka ahay ayaa gabadh baa ii timi Kanadiyada waa gabadh Ilaahay subhanahu wa gabadh isa soo qurxisay waa gabadh cad timihii soo marisay ama timo dahab leh mariyo ku dhajisan soo xiratay mariyo gaagaaban iyo kaba dhaadheer isku soo taagtay gabadhii markaa way ii timi waxaanu haynaa markas la yiraahdo Islamic Information Society of Calgary waa markas alfanaar lamida oo dadka gaalada doonaya inay islaamka wax ka ogaadaan aanu u furay gabadhii baa ii timi gabadhii markaa waan ka foorarsaday gabadhii bay igu tiri islaamka ii sharax islaamka ii sharax shantii rukun ee islaamka buniya alislaamu calaa khams ayaan u bilaabay ma eegayo waayo gabadhii mafaatinkeedii oo dhan bay dabadda soo dhigtay mafaatinkii ilaahay siiyey oo dhan bay dabadda soo dhigtay mana eegi kartid gabadhii mar waxay tidhaahdaa that is beautiful way aad bay u qurux badantay ilaahay baan ka hadlaa subxaanahu wa tacaala tawxiidka inuu ilaahay keligii yahay inaan cid kale la caabudin inaanu ilaahay halkan inala joogin inaanu ilaahay inagu dhex jirin inaanu ilaahay inaan lahayn inaanu ilaahay reer lahayn inaanu ilaahay way ka mabsuuday waxay tidhi that is so beautiful aad bay u qurux badantay diinta nabi maxamed iyo icjaaskiisii iyo caalam al-ajinna iyo embryology-ga iyo inuu nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam quraanka loogu sheegay maraaxil ibn aadanka loo sameeyo iyo maraaxil ku waxa dhammaan u sheegay aad bay ugu mabsuuday marka shantii rukun u dhameeyay ayay tiri I have a concern warwar baa igu jira warwarku waa maxay waxay tiri qofkan ku hortaagan qofkaad moodaysid ma ihi waxay tiri anigu waxaan haan jiray nin gabadh baan isu bedelay oo waxaan la baxan beertay waxaanad arkaysid ilaahay wixii qalabkii uu siiyana waan iska zuulay oo waan iska gooyay gabadh baan ahay ilaahay dambiga may dhaafaya ilaahay dambiga anigu markaa waxaan naxdin ayaa talab ma eegtaa mise waa dambi ila ma gabadhna maaha ninna maaha naagna maaha iminka ma kor baad u eegtaa oo ba wejigaad aragtaa mise waa dambi miyaad ka jeesataa maxaad u sharaxdaa haddii ay muslimto xaggaan geeyaa ma xijaab baan u xidhay dumarkaan u geeyaa kowdha mise waxaan idhaahdaa khamiis soo xido raggiisa soo dhex taga adigoo intan xambaarsan ilaahay ku barakeeye haddii aan dumarka u gudbiyo dee haddaan idinku idhaahdo waa dumarkii nin baa la tukanaya dee way dilaysaan haddii aan halkan aan idin soo dhex joojiyana dee khushuuci daaqadu ka boodaya horta u kaadi baan ku idhi marka waa arrin weyn waa dembi ilaahay laga galay subxaanahu wa tacaala khalqigii ilaahay ku siiyey subxaanahu nin buu kaa dhigay nin buu ku abuuray qaraar baad gaadhay inaad dawooyin isku mudid inaad waxyaaba isku beertid inuu aaladii ilaahay ku siiyey aad ka goysid inaad meel kale waxyaabuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu talingelin baad dhex gashay bal u kaadi ilaahay wuxuu ii hawl yareeyey inaan sacuudiga tago marka waxaan la kulmay cabdalla xuqayl wadaad la yidhaahdo ani waa sheekha ii geeyey muftigii buu ii geeyey muftigii baan ku uri yaa fadiilati sheekh xaalad sidaa iyo sidaa iyo sidaasaa jirta fama alxukm wadaadkii intan ka filayey inuu fatwo isiiyo wuu dawakhay markaasuu maroora dilaacay qaala ayucsi illaah بهذه الطريقة ومساسة إلهي دم لو قلها إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله مركز مرة يقسي تشيستا
markaasuu wuu ignore gareeyay wadaadka halkaasaan ag fadhiyaa sheekha waxaan ku leeyahay sheekh qofku wuu isugayaa kanadan ku noqonaya iftina fi almas'ala sheekhu markaa wuu iga aamusan wax allaalay wuxuu igu idhaahdo markan la hadlaba wuxuu idhaahdaa laa xawla walaa quwata ila billah yaa sheekh gabadhi mayin muslim misagaal baan ku daynaa laa xawla walaa quwata ila billah markaasaan ku yaa sheekh azidak min ash-shi'ri bayt aan ku sii kordhiyo in waana guurdana maxaynu samaynaa markaasuu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun mid daba fadhiyaa yaa sheekh qul lahu yaktub فنجعلها أو نضعها أمام اللجنة فتوضها سوقر وذاتها سوقر وحن أجد بيننا وين جوينات معصية داسي فردي مركا وحي ماشى شوقي أردن حنششق ورمية دعوة ما يلها بس الدم بلوجا قال ما معصية دا وحن درمي مركا مجلس كا إن دم بيجا إذا هاي لجا قال كان ذا لجا قال qof gaali uu ka galay inuu taabtay wadaadka halkaa jooga waxaana ii cadaysay markaa wadaadkan hor fadhiya inuu dareen iimaan wadnihiisa uu ku jiro inuu wadnihiisu markaa aanu aradin oo aanu asaguna angegnayn inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala iimaankii ku daayay oo iimaankii ku abuuray waxaan jecelahay markaa walaalayaal inaan inta ku soo gunaanado ilaahay subhanahu wa ta'ala waqtiga hay noo barakay laakiin calaamado fara badan baa jira oo la isku arko haddii inta anta taabtay aad isku aragtid ama aad ogaatid inaad calaamadaha ay adigu aad calaamadaad ku dhex jirtid ay yihiin isgaad oo nafta badbaadi oo wadnaha waxaad ku rushaysaa shay min dhikri illaah wa tilaawati alqur'aan iyo masaajidkood la yimaado iyo naftaad aad u xakamaysid waayo naftan bini aadankii waa cajiib waxaad bartid ayay raacdaa haddii aad markaa taacati illaah iyo qiyaama leyl iyo dikr iyo qiraa'ata alqur'aan iyo waxyaabaha ilaahay uu jecel yahay aad nafta ku maaweelisidna naftu way ku soo raaci haddii aad ku mashquulisid waxyaaba bilaa macno ah ciyaaro la daawanayo suuq dumar suuq la geynayo caruur kabahoodii iyo koofiyadahoodii laga shaqaynayo waxyaabo umuura dunya aad isku mashquulisid ayadoo aad kula tagtay ay kula fogaatay baad arki doontaa markuu malakal mawt uu yimaado aniga intaas iga tahay ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا أدري إن ودادد وقت السؤال يجواب أي جيران ينكله حكمي قبل محاي كقاعد علماء هرتش علماء ويسكو خلاف وي شيخ آل الشيخ يا عبد الله المطلق أو شوقي مركا يا الحقين إن يا غديان أنت بوي شوقين لتنا رحمهم الله أنت كنا حفظهم الله ويوحفت ودا ويسين كرواية وحنوتجي مركا شيخ الله هذا عبد العزيز إن الفوزان عبد العزيز الفوزان وحيسيهن شيخ صالح الفوزان وانا شيخ نلتشوغي مرايكن كشن سنضاد واحوال الغرب يا مشاكل كغرب كتشيره ام شن سنوات لا دحنولا مساله دي marka wuxuu yiri waxa waajiba inay gabadhani sidii uu ilaahay u abuuray isku celiso oo marka waxan ay isgalisay iska saarto in isku muddo hormonaadkii loogu talagalay in lidhukur oo dhukuriya marka male hormones bay dhahdaan marka ragnimadii waa inay soo celisaa marka irbada isku mudaano irbadahani gartimihi buu ka jaraya codkii buu ka dhigayaa cod naacim oo soft ah in way wax isku mudaan hormonaad unthawiya
marka waa in hormoonada dakariya isku muda oo asligiisii ku noqda waxay qaadanaysaa muddo dheer oo sanada ah iyo lacag fara badan marka loo doono marka aalati dhakara loo doono ila aalati unta wamka ayuu xambaarsan yahay gabadh buu iska dhigay marka waa nimada lagu soo celiyaa mar labaad waxaan muddo qaadanaysaa fadilati sheekh muddada maxaa la sameeyay kayfa yutaamal maca hada al-insan sidee baan ula macaamilnaa marka wuxuu yidhi fi lwaqti alxaadir waqtiga xaadirka ah waxay asligu isinu xukunka sharciga uu ognahay qofka bini aadamka waa saddex waa dhakar waa untha iyo khuntha saddexdaa weeye ama dee waa nin ama waa gabadh ama waa labeeb marka wuxuu yidhi labeebkii ma gelin karo oo ilaahay saa umuu abuurin ayadaa iska dhigtay oo asagaa iska dhigay laakiin bixukma daahirkii haddii qofku doonaya inuu masaajid yimaado walaa budda inuu masaajid yimaado waa inuu qisma dumarka lagu biiriyaa marka qism dumarka waa in lagu biiriyaa hadhow marka codku uu soo noqdo oo arko marka inuu soo galayo qismigii ama noociyat الrujuliya ama noociyat الrajul uu soo galayo marka waa inuu marka xagga dumarka loo soo wareejiyo waxaan u malaynayaa xagga ragga cafwan waxaan u malaynayaa inay ka dhacdeen mas'alo saas oo kale ah ayna namsa ama Switzerland iyo Sweden meel ka dhacday imaamku marka wuxuu ka dhigay imaamkaasi xukm al-khuntha laakiin sheekh al-Fawzan wuxuu xukm al-khuntha iyo aydan inni wadaadkan la yiraahdo Salman Awd حكم إن لو عليو أصل جيسي قف والله أعلى وأعلم نعم وفي رصدا نبى إيم الشيخ وان عربة ومطوع وملتزم وان لها كعب صنية وحد الشيخ سعيد وصوت اسمه قال هذا وحن كنا والله كندا ووضمضة قال هذا مركن قياسه وضن كوجونا أكثر مركن موضوع حرية الإنسان هي حقوق الإنسان لكن مركزنا كان الله إيجو أخلاقياتك يجو ما أخلاقياتك وضنك كندا لا يوافق أخلاقيات المؤمن وانفكر ما أنت كحيبة سيد الشيخ وركن لقيستي محل اللي مركز الله يسكوب بالشارين إياه ما أنت واحد شره مسيرة العراة ما أنت واحد شره مقالدي dadku inta la soo wada qaawiyo labbayk allahumma labbayk sidoo hooyada kugu dhashay carur ma hada dadka waayeelki inta isa soo wada qaawiyaan hada waa mud sidoo ilaahay ku abuuray walaashooyada kaga soo baxay rag iyo dumar ayaa masiirad magaalada saa loo galaya سامي بالشيخ ما أنت أدى كدا شيخ ما شاء الله وإن دبيله يا كدا ما شاء الله وان لا يرسبي وان أجد ما كسر today ومالنتي نجس كأقرة نجس بالغوص على مالنتها يعني من التقوى ما شاء الله واحد لقى دقي من إنه قفكو إسقاوير ما أنت بالنجس صحيره وعجيب وان كتشوجي وحنا مانت وحنا الصعودة قرض عين كاس وقرأ أهل اللواط من طعطة إلى يا السلام عليكم معجون ودن أيجا ودن كحيستا هذا لا ينطبق مع عاداتنا مين والباك إذا كنا واحد يويدينا سام وركنا عن كانوا تقع وحكوا لي يا شيخنا شيطانك كعرارة وكفوا هذا فروا من الجهل إلى العلم ومن الكفر إلى الشكر كورما أضاء المها غير ما إن أنت هذا رسيد شركة قعنت حيا وهلك لقى قوية على أي مبدأ تربيها ما تكورين على أي منهج توجهها ما كريكرتي مركز النعمة شكر النعم ولا بد منه ننقاله وكريستنا أيان ما الفيديو سيقول عين ننكاسي سيدو يفهم سيب معنى الحياة ولي وما فهمين وقال علي بن أبي طالب حورين شري الحكمة ضالة المؤمن صمها أنه وجدها فهو أحق بها نكن حارق بوسوقاتي
مسرح بو سوكري ولا بوحا ستيجك حرق وحرق دير وحرق عد انتا إن يرو انتا لك حرقي أيو رنجي عصو مري وانين كريستنا وحولي نرشينو وانتا آخرا نقول وانتا وحرقا نهاية الله هاي المركة أيجي بضدك بكل ليه how would you choose to concentrate this little part of your life rather than the rest of your life وقال عن كيف بكل ليه أد أنت ير أدقو ورورتها وحن باندونية I want to achieve this I want to do this I want to travel around the world I want to إنها كنت باندونية إن تنسى يا باندونية إن قبض أبرتها باندونية نرش هذا تركز على هذه النقطة وما الحياة الدنيا إلا متاع بل أفر صلاة نينك ما أنت اللي إحنا النولاضي وارنتاب نولاد ده حبك ما حسسنا والشرع والذكريات ليس هناك لذة ككنت كنولاده كأفرت كنولاده كصدق كنولاده كشيء لباطنك نرش محات كسي هيسا ليس هناك لذة ومجرد ذكريات خالية أكسنو مركا إن النلشني دلنتد أي تحي وأنا يقول لحين أنسى الله إلهي سبحانه وتعالى القرآن يقول عندما يقول إنما الحياة الدنيا وأما حي لعب ولهو وفرس ولعب يلهو لبا إنم با إسفاري وإسفاري ورمحي سفر دمان كوري وانيو فريق يقول عاي تيم كي يقول عاي هدا والله النبي يقول عاي أنا وانا فاري لها صباحتنا وان راعين لها ككلا حدول هذا دين تبع وحول I follow Arsenal بوري أصلا وحوي ومانشستر يونايتد أنا كنت تيم كي يقول عاي لعب الدون كبير لعب إلى النقطة وأن المسنا مساجد نقول لك كذا ولا كذا مساجد كنت كذا محو فعلي لبنينا ميل كبدسكو إريانية يعني إلهي وكل شيء ورا الدون كان يوال لعب يلهو يزينة قبل قالوا وإنت وتفاخر بينهم أنا يقول غير هبلة أنا يقول سلاسة أبوكم يا تحي أنا وعنك سانهي تفاخر بينكم ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلى هنا القرآن وحكي إن أكرمكم عند الله مورن إساق مورن أوغادين مورن قر مورن دارات مورن رير وحكي إن أكرمكم عند الله أتقاكم والتفاخر بينكم ما جرت وحاس نسب كان إيو أنا من بني فلان إيو أنا أبد يوم القيامة كتاب كاو فأما من أوتي كتابه بأما وعنك سكر ما جرته إلهي وكو إيجايا ننقل با هو مسلم سامكوري how did you accept Islam وعنك هذا مسلم عنك أيضا مسلم مالك ما نشوفنا نعبها وحجري I was searching for God إلهي بان دوني إنك إلهي سبحانه وتعالى سبحانه نعمة الإسلام هذيك إلهي هو اللي علمي جيسي وكا إلهي راعن بالويل and we still don't appreciate ما قدره نينكن وحجري إلهي بان دوني شر وحني معي كريستاني وحني كنيسة قريب ويلي كنيسة دي بان إيجي عيسى وإله حدنا وإنا إله وحدنا إلهي بإنا كيسي دلي حدنا صدح بأي هاين حدنا أسقي بأ صدحها وروا محي وحني وانصوبوا ذي بويلي الباب كان قفصتي تي وحان سيخان قالي وانصوبوا ذي تي يهودان قالي وانصوبوا ذي وحولي هابين كي مركن سيحضو وحان أركبوا أنا الضوليا وانضوليا حود وين معانته سبحان الله بيبض أكر لكن معانه الدجن وسيدا آير الدباحين ينظر مريا وحول وحكو قرن فر وحي تقرن مايو ما فهم زين يقول وحي تاي وحول سبحان الله أنا ما الناس كدون دونية هي من صاحبنا هاي كتاب بيل دقي كتاب قرآن وأمي شقيان أي من صو إيجابيلي إلا ما يقصد ضادته
وحي قرآن كم أركي يبضه وابا قرآن بويري وقرآن سانكر بولي what is this because sorry this is my book my Quran because I wanna be whatever that book is وحو كتاب كاسي أيان راعية هل كاسم في المسلمين سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إلهي ما ضيعيه جهدك يددارك وقفك سليمي إلهي سبحانه ما ضيعيه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى إنه قفك مؤمنك إنه إذا هذا إلهي سبحانه وتعالى وحن كفل يا خير وحكى لك مفل سبحانه وتعالى وحكى لك مفل حسن الظن بالله في حديث أبا هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إلهي وحو يريد سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن في مسند أحمد قال فليظن عبدي بي ما شاء وحو دون هاي ملايين الدون كيف هل كو إدقوه الدون كيف برتو إدقان ينوشو قابو إلهي سبحانه وتعالى هل كو إدقوه ينوشو قابو إلهي سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى فليظن عبدي بي ما شاء أنا معه إن ذكرني في نفسي وأن للصعدة حدو كلي يحصى شاعرنا كاسوس كفر إلهي بو ذكرك إلهي كلي وحصى يا إلهي سبحانه وتعالى إلهي النبي وحولي صلى الله عليه وحولي قال ذكرته في نفسي أن إلهي بما يليق جلاله سبحانه وتعالى قال وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه سبحانه وتعالى ففروا إلى الله بنابل Buddy, I know you Canada. This is what happened. It was a funny but a unique story. There's a coffee shop called Tim Hortons. And this place, you know, you line up for your coffee and your breakfast. And then while I'm sitting, when I'm standing in line, wuxuu arkay ninkii iga horeeyay ayaa uu soo jeestay wuxuu arkay in halkan ku qoray welcome to Islam shaar baan gashanay marka t-shirt baan gashanay khamiis baan xidhnay waa xalaal wadaadina marmar iska tuuraan khamiiska ay koofiyada iska tuuraan ay iska jeans iska xidhan waa iska xalaal marka qaarkood marka horena astaghfirullah islaan waxay leeyahay Allah haya oo dhamaatay wadaadka marmar baa iska xidhan waa iska okay t-shirt baan xidhanahay welcome to Islam weeye saasuu ii soo eegay he just turned markuu arkay buu xanaaqay markaasuu I hate Muslims muslimiinta waa neceba marka wuu qarxay September 11 baa samayseen caynkaasaa samayseen dumarka abuse garaysaan afar dumara guursataan gaalada ma jeclidin wixii he just went on and on and on and on how we hate them and how terrible we are. And then wuxuu ku soo gunaanaday, he concluded his, his fight, verbal fight. And what kind of man is this man that you follow, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Waxay ninka daba socotan waa maxay? And then he brought the issue of him marrying Aisha radiyallahu anha. Why did he marry Aisha? And then I'm listening. When he was talking, I didn't say anything. I did not interrupt him. I did not say anything. When I start talking, marka he's frowning. Yani wajgiisu wuu urursan yahay, sunniyihiisu wuu urursan yihiin, dagaal buu sugayaa. Dadka gaalada naga horeeya ku iga dambeeyaan, they pretend that they're not listening. Kuba dhinac bay eegayaan because it's very uncomfortable. Meel lagu qabsado coffee shop. When I start talking, I smile. When I smile, wajigii caynka ahaa cabuusa qamtariira ahaa horta wuu furfurmay. De wuxuusa wuu ku dhiibaya mogta. Ana waan qoslay. Markaan u qoslay mid ka dambeeyay asaga, ka horeeyay asaga, oo kolbana soo yara jallacayda kolba isha lagu xadayay. Ayaa markaa arkay inaan qoslay, ayuu soo wada jeestay warta. Markaas baan soo dhageysan labadan. Su'aali baan uga jawaabay markaa, step by step. Okay. September 11 ku dhagtay, let me explain to you.
So I quoted all the issues, all the statements and the incidents and the quotes of the non-Muslims, not the Muslims. marka waxaad ku tiraahdaa war heer anagu kabaha iyo xitaa kabaha markaan masaajiga soo galno ma hagaajin naqaano. Imagine, planning 4 international airports. laakiin kuma waxaan xasibay Soomaalida fadeexadeynayna muslimiinta iska aamo. I gave the information bit by bit. Aynkaas u istaagnaa, he just gacmii markaa ila daji. One issue at a time. Inside of me, markuu hadlayay uu dee nebiga caayay, uu caasho caayay, uu muslimiinta caayay, hoosta naara ayaga baxay waan qarxayaba. Laakiin had I express caraydii iyo dee wuxuu sameeyay haddaan siduu ula macaamilo imuu dhagaysteen. wuxuu odhan lahaa f you iska dhaqaaqi lahaa. laakiin marka when I smile that I can take this, he listened. ninkii waxaan wada taagnay almost 2 hours baan wada sheekaysan. 2 hours. kaafigii baan wada qaadanay. anaa ka bixiyay kaafigii. I paid the coffee. So Muslims are very generous. Let me introduce you this. kaafigan ka bixiyay, sandwichkan ka bixiyay, dabadii baanu istaagnay, dabadii baanu saacad ku sii hadlaynay, waanu sheekaysan. All of that. markii dambe markii sheegaynay, markii gacantayga salaanta ka qaadayay, uu gilgilayay. Thank you very much. Thank you very much. Muslim muu noqonin, but I'm sure. haddii markaan ku raahdo war adna f you and this and ana caaytamo, wax allaale iyo wuxuu ka faa'iidaysan lahaa aan anna ka faa'iidaysan lahaa may jirin. laakiin markii dambe wuu isbedelay, wuxuu islaamkii dhinac kale ka arkay markaa. He realized it's so true. waxaan ku logically 4 international airport, is it logic none of them xitaa la yidhaahdo mid baa la qabtay ilaa saddex ay mid fashilanto, saddex they succeed. I understand. 19 Muslim ku dhintay diyaarad ku dhintay. All of them were terrorists. All of them were male, not a single female. While we have 9 million Muslims in the States and we travel left and right. How? marka asagiiba he had to defend. innaka marka in الدفاع. It doesn't make any sense. culamadu waxay yidhaahdaan هناك سحر حلال وسحر حرام. سحرku waa laba nooc bay yidhahdeen. sixir xaraana iyo mid xalaala. One that is lawful, magic that is lawful, and magic that is not lawful, unlawful magic. sixirku in ogna waa wada xaaraan, laakiin waa maxay ka xalaashi muxuu noqon karaa? qaala culamaa السلف waxay yidhahdeen tabassumuka fi wujuhi الرجال. inaad marka dadka hor taagan tahay, for you to smile. tabassumuka fi wujuhi الرجال. nabiga sala allahu calayhi wasalam axaadiis fara badan baa laga soo wariyey. axaadiis fara badan waxaa ka mida nebigu wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam smile, uu qofka u dhowr la caddeeyo, uu soo waji bashuusha, wax walba u bedeli jiray. nin baa nebigu u yimi sala allahu calayhi wasalam, halkaasuu qabtay. qaala acطinii min maali illah laysa almaalu maalaka walaa maala abik. xoolaha ilahay wax iga sii buu yidhi. xoolahani xoolahaygii maaha, xoolahaagii maaha, xoolihii aabbahaana maahe. The wealth is not yours and it's not your father's wealth. Give me some wealth. waa badwin, waa acraabi. Umar bin Khattabna seefti intuu sidaa uga yara saaray, he took his sword فقال يا رسول الله دعني أقطع عنق عن كوكك سيدا. Allow me, let me kill him. فقال دعه يا عمر. اسكت أبو عمر. marka nebigu uu ka lushaa ninkani. He's holding the messengers of Allah sallallahu alayhi wa sallam though. Then the messenger of Allah tabassam, wuu qosbay. قال الصدق. run baan sheegtay. run ayaad sheegtay. المال ما xoolahaygii maaha. run baad sheegtay. de waa nebiga sala allahu calayhi wasalam. cumar seeftiisa waa diyaar, khaalid bin waliid waa diyaar, ina la kala goosto ninkaa dee la gogooyo 5 mirir bay ku qaadanay saxaabadda. laakiin nebigu wuxuu waa dhabtaa wallaahi xoolahaygii maaha. cumar u ziyaadi.
أعطيه نينك هو النقضي صلى الله رضي الله عنه أنتم مسلمون هو النقضي تذكبوا يلي يا أيها الناس اسلموا مسلمة اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر في أحد الروايات نبي محمد وحب بحياه he gives a wealth as though he fears no poverty فقر كبق ما ير حق النبي أوقحها ولا صوت قحا نبي صلى الله عليه وسلم in one of the narrations while the Sahaba of Rasulullah and Messenger of Allah were traveling for jihad at the time of Quraysh and all this, and then the Messenger of Allah, he rested under a tree by himself. Get the horse for instance. Sahaba di Nabi gana way kala fogfogi mid halkaas uu fadhiya mid halkan buu fadhiya mid xaggan buu fadhiya mid bas Nabiga ma arkayaan marka nin reer miya oo badawa oo Arabiya oo Nabiga daba socdo gaadayay or was waiting to kill the Messenger of Allah ayah he walked into under the tree where the Messenger of Allah was. Safety will qada, he took the sword, he pointed to the Messenger of Allah. قال يا محمد من يحميك ياكو إلاني يقول يا محمد ياكو إلاني كمان يايكا علينا who can protect you today? The Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم قال الله إله بيكا إلاني Allah is going to protect me Allah وكذلك مرة عمره وخالده ويسوق قال لا he didn't call for the Sahaba he said Allah will protect me ninka gacantiisa baa garintay seefti baa ka dhacday the Messenger of Allah he took the sword back he pointed to the man ninka uu ku jeediyay markaasuu yiri ya a'rabi ya ika celinaya markaasuu yiri ya Muhammad isaamxa isida nabigu sallallahu alayhi wasallam uu qasray uu ismaa seefti uu ka dhigay saxaabadu uu yeeray saxaabadu leeyahay caynka saadhacday ninkii nabiga doonay in dilo alayhi salatu wassalaam nabiga bari muslim ma muslimo ya rasuul ya muhammad ma muslimiyo laakiin waxaan kugu ballan qaaday I will never fight you ever again I will never fight you the man who came to assassinate the Messenger of Allah ayaa kula wadiga ya Allah kulama dagaalamayo cadawga ma noqonayo uu iska baxay so nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dadka ku cilaajin jiray oo ku soo dhaweyn jiray oo diinta islaamka la qaadan jiray waa because waxyaabo yar oo simple uu sameyn jiray waxa kamid ah ibtisaamada ama tabassumka talabaad toddobayn ka hadlana maanta talabaad waxaan la yiraahdo gentleness ama rifq jiljiray inuu qofku jilay maaha nacasnimo ma jiljiray nacasnimo maaha laakiin waxa weeye inuu qofku uu raxmad yeesho waxaan nin magaalada degan ayaa markuu masaajidka yimaado waa nin wanaagsan uu qoslaya guriga markuu tagana waa dibi ma sha Allah marka islaantiyo de ashkatoonaysa caruurtiyo sida bisadax mar guriga soo gala ayay wada yaacaan oo mid maqsinka gala mid balkanaha istaaga ilaa mid maqsinkiisa galaya markaas islaantii caruurtu ay leedahay ninkan laga qabto war hebel soo digeen wanaagsan markaad masaajidka joogtid ma sha Allah rahiimke yararka halka ku buuqay ku eriyay deeron baabayo sukule war ma meel soo dumarka Soomaha war wariga Allah ha qosin kule dumarka wariga ha qosin wiye أكثر ير كلام مسؤولي مياد ما قلبه ما هذا هذا الكهة كتستيد دبوده كتسان هو دواني يعني الرفقي الرحمة إياه he just put it aside and this is not how it should be مركز ومن هذا I don't mean يعني نعس نقود درارك أكاداته but I mean يعني عمر بن الخطاب محورجري لا تكن يبسا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر يعني he said don't be too stiff that when people try to bend you they will break you and don't be too soft that they can squeeze you but be in the middle
waxaan u jeednaa marka الرفق ومطلوب. The person has to be noqdo qof raxmad leh, gentle ah, kind ah. Nabigu sallallahu alayhi wa sallam arrintan aad buu uga hadlay. دور نوعد بين كهذا الرفق مع الأهل. غيرك عائشة رضي الله عنها وحيتري نبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط. ولي his entire life he never had a child, he never had a woman. The only time that he will raise his hand it is jihad fi sabilillah, when he is fighting with the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. Khair is different, especially with the wife. Especially with the wife. Children, usually as men, we love our children. Abanimadu mukti wa rahmad. Marka carruurta waynu u jirjiracsanno, waynu la ciyaaraayo, waynu rogroganaayo, waynu rogrogtaano, waynu yaraa. Laakiin had you go, we are a little bit harsh with women, with our wives. Dumarkan ku yar adagna ku yar qallafsanna. And it should be other way around. Umar bin Khattab wuxuu oran jiray kun bayna yaday imra'atak kas-sabi. Wuxuu jiray gabadhaada marka guriga tagtid sidii ilmo yar ula kula macaamusho. Yani ha ku dirdirto, ha kugu qayliso, iska aamu, u sabir, u dulqaado. Hadday ku maagto jazakallahu khayr le, hadday kugu qayliso ilaahay subhanahu wa ta'ala ku barakeeyo le, u ducee. One of the narration, Umar bin Khattab warta sheekaysta lagama daalo. Umar bin Khattab wuxuu qof adag waa taqaan adag, yani really is rough buha. dadkuna way ka biqi jireen, saxaabadu ka wada biqi jireen. waxaan ka intusay cankan looga biqi jiray Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wuxuu maqlay gabadh ninkeedu ku maqan yahay jihaad ayaa uuraysatay. ninkeedu jihaad buu ku maqan. Umar bin Khattabna shaqadiisa waxay ahayd dumarkan laga maqan yahay inuu daryeelade uu markaa ilaaliyo oo xaalkooda eego oo ka warhayo. waxa la yiri hebel gabadhiisu uur bay leedahay. gacanka uuraysta marka ileen internet ma jirin oo ma jirin Skype ma jirin, ma jirin. How? The only way ku uuraysan there's no Skype, there's nothing wax weeye waa meel bay ka dhacday. oran meena laakiin de waa only explanation kan igu yeedha buu yiri. askariga baa u tagay gabadhii. Umar bin Khattab ku doonaya ilmihi ba soo riday. وانا حين كبقى عمر بن الخطاب ilmihi baa soo dhacay. saas Umar looga baqi jiray. marka nin gabadhiisa halka hayso ay dhufaantay. waana waxaan u bixinaa 911 generation baan u bixinaa. oo markuu yiraahdo naga aamu 911 askari baa kugu yeedhaya. baa ku hay maxaa doonaysaa bari war. marka waxaan u bixinay one generation ma leeyahay. waa dumarkii ka soo galay wadankii, education badan ma leh. waxay ka taqaanaa in my husband hitting me. ninkii bay diiday marka wala soo yaaca marka. asla intaanu booliska soo gaadhin wadaaqada ka sii boodaa. wallahi waxaan anigu keenada xawal ilkaga haynaa iska aamusa. marka taasoo kale ahay. marka Umar bin Khattab bari waheede maxaad samaysaa. waxaan leeyahay ninkii bari maxaad samaysaa. wuxuu wallahi idan Umar ahayn ka saari mayso mashkaladan. soo Umar buu tagay radiyallahu anhu. Umar baa ki garaacay. markuu albaabkii uu garaacay ayaa wuxuu maqlay gabadhii Umar oo leh war bila macna la taagantay albaabka fur. ay sidii ku qaylinaysaa. ninkii baa si mala waxbaad qalas u maqashay bal u yara kaadi. albaabkii garaacay. haddana Umar oo la eriyay oo arkay miskiinkii. markii halka sheekadu marayso ayuu yiri gow abay celi meesha. wuu iska laabtay. markuu albaabka sidaa u furay Umar bin Khattab markuu albaabka soo laabtay Umar bin Khattab albaabka furay. فقال ما لك يا فلان. حكوا دعي فلان هبلو. ما قال يا امير المؤمنين
محمد جزاك الله خير. قال لا مالك حضرتني. قال يا أمير المؤمنين لا عليك هكور ورد هيدت هذا اللي تكلني. عمر باري قل وإلا أوجعت يور هذيك أنا أم كرباشي هذا وانيكي ما قولش أريني شيء أرينيكي كلهم كرباشي عمر بقى. فقال يا أمير المؤمنين جئتك شاكيا waxaan kugu miisaan kugu ashkatoodo oo gabadheeda ugu ashkatoodo laakiin adiga oo lagu baacsan lagu eryanayay taada raxmadu yaa u baahan cid ku caawisay si kay daawil adiga u baahan iskay daawis qaala taal وفي سوى الدمركين هي موضع شهوتي ومركن أبا هذا ويجوك تابويلي حرورتي إي كوريسا مريها إي مادا وحتى إي كاريسا قريقي بيكلين كاريسا مرمر هذا يرى عروته ألا نصبر عليهن إن الصبر يعني أهين إن الرفق يا جنتل يا كاينس كل ما عامله يعني أهين مركز the first thing وحوي إنه قف كل ما عامله حاس كيسة سر رحمة لي وأن أقعد قارب الأردن اللهم حوالينا ولا علينا دمرك قارب لقد عيسته والرقبة شرب مساكين أقنا هاي والله إلى هاي وكو ابتلاية دمر أدمود السد إن وين ويتيكت جهنم لو قدر يا مكان الإنسان ورقي كدادين كردادين تودي يرد أو نينكي أنو إلهي سبحانه وتعالى كعابد كرم مساج كانوا كذي كرينين أو أنو غير كيس ذا حيل كرينين لكن دمرك أنت وضع بدني كو إلها كبقية مساجد يمادا حلقة ذا يمادا جلبابك حجابك نقابك حلال وحياباكم مرة من كان رجع وحيلنا يعني نكونوا ويرك هادين إن شاء الله طلبات يا أباهن الرفقه وعرورته عرورتين وآدي أباهين they have to be يعني علمه هو إنه درما إنه آبا يهوي أوليه آبا يهوي إنه أوليه وإنه درما علمها هو the moment مركو قف كلا أطهق المشاكل كيسة إن أفكار كيسة وقف كلا لا دونتو خلل بقولي كشرا خلل وين بقولي كشرا هو يمكن يبرق يهرة يحتى إمك ضدك وين أنت وضد بدني قعنت وين قصه الرئيسان المصو مالهم كأورانين إن مربى للرباحي أما دعس ليقول لفتي أما كبر ليقول توري متشرو وهي تربية دين أساسا إنك نلقوا سكرية سيدنا إنك نلقوا سكرية وحوي المهم مركو قلدون ليرك رباشة صماها حتى معلمين تاني كرباشة ترى معلمك ونسو كرباشة مركز مع عمادة كتي ماجد دفتي يرباس أياك وقبنايا لوقي يراك صو قراعية قريبا لمن إسلامتي عليه قراعية بيرتنك وشغلك بلاوس هذانا وأذكر الله سمع عليك وكسود ليا لحد من يدرك وكسود ليا قري هذا ولا بوصل قراعية ما كان ينبرنا هل كما ينوني تكون درين كانوا ينقرعن سماها لكن is different حديث كي النبي أوفي رسول النبي عايش واحد النبي صلى الله عليه وسلم ولقي المودلين وحين بهاني مكان إنه الرفق في الدعوة ممكن إنه دعوة دفدنا إنه قف كان قال كأ إن مركز تعديد يعني قارب لأن يرى أركان أنت خميس كجاب سدين قال كنا الله بحي هل كان عدد يركتها جزاهم الله خير يكون he's a كافر وكافر كلمة ده قاعد كه don't talk to him like this don't talk to my brother like this وصوب بدهم كاسين القرآن هذا قال كه that it should not be the way it shouldn't be the way we will talk about عنك الضجارة والنبي صلى الله عليه وسلم ولما عامل شيء لكن in every field وحنو بهنا إنه رحمة إن تقصدك تصنع in gentleness